anigoo afayeenka guddida kaambeynka ee xisbiga wadani waxaan halkan maanta aan ka sheegayaa sida fiican ee sharafta leh ee maanta inoogu qabsoontay doorashadii madaxweynenimada ee jamhuuriyadda Somaliland waa mid ilaahay loogu mahadnaqo. waxaan kaloo sheegayaa fariimaha qaarka ama se eedeymaha qaarka ee ku soo cabanaya in ay gobolka Gabiley ka dhacday in lagu shubtay codkii. waxaan cadeynaynaa xisbiga wadani annaga ayaa u ah mas'uuliyiintii u fadhiday Gabiley. waxaa nagu ceeba in la yiraahdo waxay ku shubteen oo ay ku tashadeen codkii. wax alii wax ka jira ma jirto. seerfalku waa wax laga soo shaqeeyay anoo waxaan dhalinyartii ka shaqeyn jirtay commissionka ma dhici karto marnaba in lagu shubto cod. waayo goobta waxa ka codeynayay 500 qof 500 qof ee ka codeynayay goobta waxa soo noqonayay waraaqo. waxa saxeeyo xisbi kasta u joogay goob joogayaal 3 muraaqib waxay saxeeyeen warqada hadii la helo hal sanduuq oo Gabiley kamida oo ay ka codeeyeen 500 oo qof ay ka codeynayeen oo laga helo 700 oo qof oo lagu shubtaan leh. waxaan leeyahay komishinka doorashooyinka qaranka wuxuu xaq u leeyahay xisbiga iyagu in la qanciyo laakiin yaan lagu rafanin. Gabiley baan laga shubtay annaga xisbiga uga mas'uula u fadhinay u joogna ilaa markii codku dhamaanayay ilaa markuu bilaabmay waxna kormeerayaashii kormeerayay inta uu gobolka Gabiley u yahay. waxaan xaqiijinayaa inuu ka dhacay gobolka Gabiley cod xor iyo xalaal. waxaan leeyahay war la iska daayo kicinta dadka la kicinayo. waxaan u sheegayaa mas'uuliyiinta reer Gabiley u dhalatay ee waliba ka tirsan xisbiga wadani ee beenta u geynaysa musharaxa madaxweynaha. waxaan leeyahay waxa tahay madaxweynaha Beritoole waxa tahay mustaqbalka Beritoole kii soo noqonayay ma aha inaad aqbasho hal iyo qof kacdan wada. Somaliland uma baahna rabshad uma baahna dagaal ee waxay u baahan tahay nabadgelyo. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi